sharciga la soo diyaariyey aniga waxaan ka mid ahay axsaabta register gareysan oo kumeel gaarka ah xisbi ka mid ah dadka hogaaminayaan ku jira guddiga kumeel gaarka ah waana la tashtay wax badan oo wareegay sharciga oo noo keenay ama aan uu la tashtay axsaabta sharci aan ahayn ay xukuumadda noo keentay waxaan rabaa macnaha inaan ka jawaabo wararka dadka qaar ay aaminsan yihiin oo ah xukuumaddu inay noo keentay sharci ay nagala tashatay axsaabta haddii aan nahay wax badanay ka soo beddeshay sharcigaas isaga ah ilaa xataa aan ognahay saaxiibadeen qaar wasiirada joogo inay leeyihiin markii la gudbinaayey hana la dhaafsiiyaana la dhahay baarlamaanka ku soo celiya haddaan rabtiina inuu sax ahayn waa u jeednaaye marka waxaan rabaa inaan idin sheego sharcigana loo keenay ma ahayn sharciga lagala tashtay axsaabta mana ahayn sharciga lagala tashtay maaragtay bulshada qeybeeda kala duwan haddana waana loo keenay guddigaana loo saaray guddiga sharafta leh juhdi badan ay bixiyeen wax badan ay bixiyeen asaga naftiisa perfect ma ahan sharciga hadda la keenay sidii la rabayna ma ahan laakiin waxaan rabnaa inaan doorasho gaarno haddaata markaan hadlaya waxaan ka hadlayna inaan qabanno wax aan berri aan dhihi karno waxbaan waddankan u soo qabannay waxaan rabnaa sharcigan isaga naftiisa wixii oo daldaloolo nooga muuqda inaan tilmaanno oon sheegno ama aan qeexno waxyaabaha qeexitaanka u baahan si uu u noqdo sharci loo aalo oo ummadda ay maaragtay waxay rabto berri nolo kaga sheekeeyo marka raalli ahaada waxaan rabaa inaan galo sharciyadan waxa muddadan la soo gaarsiinayan waa ogtihi walaalayaal nin walba oo mas-uul ahoo meel jooga wuxuu rabaa sharciga inuu shaatigiisa ku talo hadda maamul goboleedyada saaxiibadeen ma rabaan doorashadii waxaan ka hadlayna qaarkood waxay rabaan sistamka hore in loo noqdo maxaa dhacay waxaa u muuqdo kii sidii loo boobayay kuraasta qaar u muuqato qaarkood marka way dhibaysaa doorasho toosa in la galo mas-uuliyiinta xukuumadda nafteeda waxay rabaan miday shaatigooda ayaga tashteen inay suubiyaan annaga nafteenna waxaan rabnaa inaan ku dhoganaano ama qaabka annaga aan soo aragnay waxaan isleenaha kuraastiinna aamingeliyey maaragtay waxaan rabaa in waxaasoo dhan aan ka soo tagno sharcigaan aan uga shaqayno qaab ah maxaa nala saxan oo laga sixi karaa maxaa khaldan oon ka saari karnaa taas marka ama hanoo khidmayso ama inoo khidmaynin raalli ahaada waxaan rabaa inaan ka hadlo walaalaheen guddiga markay warbixintana siinaayeen oo cabdullaahi uu akhrinayey wuxuu noo sheegay inuu meelo badan uu soo maray gobollada uu soo maray meelo badan uu soo maray wuxuu tilmaamay in dhinacyada kala duwan ay la kulmeen oo dhan ay walwal ka muujiyeen nidaamka doorasho ee ku dhisan ergooyinka ee lagu soo doortay doorashada waxaa kaloo ood ogtihiin in la dalbay in maaragtay doorasho cod iyo qof in la gaaro marka sharcigan haddaan fiirno mabaadi ay noo soo qoreen asaasi ah oo x ay ku magacaabeen oo tilmaamaya in qof iyo cod qof walba xorriyad u helo qof walbaa codkiisa lagu tilmaamay waxyaabaha noocaas oo dhan waxaan rabaa marka inaan isweydiiyo oo aan fiirino mabaadi'daas ay walaalehen noo soo qoreen iyo sharciga xaggeyna iska helaynin meelaha islehna iskama heli karaan inaan bedelno maaha in sharciga aan leeyahay inta la bedelo sharciga hore hala keeno ama sharci kale hala keeno asaga aan ku kor shaqayno laakiin meelaha islehna hala taabto maalan qodobka 11aad sistamka doorashada muxuu noqonaa majoritoriankan aan tilmaamay ama qofkii oo hormaro in codka uu noqdo nidaamkii kale oo ahaa maaragtay barboosha kale waa laga tegey waxaan rabaa in la weydiiyo maxaa loola jeedaa ma qof xisbiga loola jeedaa kursiga mase qabiila iska leh ma caddo guddiga waxaan rabnaa inay qodobkaas ay muujiyaan specifically ay dhahaan saas iyo saas waa ay dhahaan si oo beri uusan mugdi u gelin waxaan rabnaa deegaan doorashay tilmaameen in loo celinayo kuraasta maxaa lagu jideynaa deegaan doorashada yaa joogo codaynaayo ma ay qofaa codaynaya deegaanka joogo mase kuraasta qabiil waayo qabiilkii besa u codaynaya si tii aan hadda soo aragnay iyada nafteeda ma cadda qofka kursigiisa xagguu tagaa ninkii laba gobol qabiilka degan kursigiisa xaggee la geenaa deegaan doorashaha la geeya kee la geena shabeellaha dhex maa lay geenaa shabeellaha hoose maa lay geenaa galguduud maa lay geenaa meeloo dhan waa degnaa ma cadda waxaasoo dhan dadka soomaalida qaxootiga oo IDB-da oo manini bargaarahay cod ma leeyihiin see ku codaynaya iyo u codaynaya kursigay u codaynayeen ma qabiilay ku codaynayeen ma nooc kale u codaynayeen qabaa'ilka hadda aan kuraas ku haysan baarlamaanka jifooyinka hadda ku haysanin xaggee la geynaa yaa siinaya kuraastooda mase weli si wada u oomanahayan oo sida dadka hore u oomanaayeen
waxaan rabaa inaan iswaafajinno doorashada qof iyo cod xisbi iyo qabaa'ilka in la iswaafajiyo systemka waxaad moodaa inuu qoorta waxyaabo badan oo isku gelinaya ay mubham ugu yihiin oo aysan kala caddeen waxaan rabaa inaan tilmaamo qodob waxaa jirta kootada laga hadlay oo guddoomiye jawaarin hadda uu tilmaamay xisbiga inuu 4.5 keeni waayo muu kaga baxa saaxada axsaabta saasuu ku baaba'a sharciga axsaabaan soo baasgareynay baarlamaanka hore oo ogtihiin shuruuduu siinay sharciga xisbiga waxaa layidhi 10 kun oo qof soo coday soo register garey 9 gobol ka soo register garey ugu yaraan xisbigoo inta suubiyey haddii oo 4.5 heli waayo khaadka muu ka baxa saaxadda muu ka baxa sharcigaasi in xisbi baaboo iyo inuu xisbi jiro sharci loo diray miya mase doorasho keliya loo diray qodobkaas naftiisa waxay u baahan tahay in la fiiriyo faqrada kale oo rab inaan ka hadlo waxay tahay qodobka 14aad faqradiisa labaad aan soo baxsada raalli ahaa faqradiisa labaad wuxuu sheegaa maalinta doorashada waxaa ku dhawaaqaayo markuu guddiga madaxa bannaan uu la tashto axsaabta iyo qayb walba inuu wargelinayo wakhtiga doorasho la qabanayo in madaxweynaha loo gudbinayo dikreeto uu ku soo saxiixayo madaxweynaha hadduu diido ka waran dikreeto ku saxiixi ma hadduu dhaho doorasho ma la qabana maxaa madaxweyne uga shaqo ah in doorasho la qabto inaan la qabtin guddiga uban macnaha qodobkaas naftiisa wuxuu u baahan yahay in wax laga saxo u baahan yahay waxaa kaloo meeshaan ku qoran taariikhda doorasho la qaban karo 180 beri ayaa la sheegay 180 beri kadib haddii la yidhaahdo lama qaban karo maxaa la suubinaa ma laska sii joogaa madaxweynaha ma iska sii joogaa baarlamaanka ma iska sii joogaa maxaa la suubinaa lama qabo qodobkaas wuxuu u baahan yahay in lasoo hormariyo markay ugu yartaa ama 9 bil la gaarsiiyo ama 8 bil la keeno lasoo hormariyo u baahan yahay haddii haddee guddoomiyaheena jawaari hadda wuxuu tilmaamayey baarlamaanka 9aad inaan qodob bedelno 64 waa wax ku bedelna aniga hadda ma xasuusto annagoo uun madalna loo gudbiyaa ogaay waagaas ma xasuusto inaan meeshaas aan gudbinay qodobka dastuur ku qoran oo 64aad baarlamaanka wuxuu siinaa 4 sano inuu muddaxileedkiisa yahay annagan iskuma kordhi karno qof noo kordhi kartana ma jirto waddanka firaaq muu gelaa hadda ha laga shaqeeyo inuuna firaaq gelin haddii sharciga aan siduu yahay u baasgareenno oon u jeedno ama aan aragno inuuna shaqay karin waa in hadda dadka siyaasadda mas-uuliyiinta u ah hadday maamul goboleed yihiin haddii ay xukuumad tahay haddii ay baarlamaan tahay haddii ay axsaab ay tahay in inta la isku yimaado oo laga tashto oo la yidhaahdo sharcigaani tookadaani ma horgeli karno laakiin waxaan rabnaa wax in lagu heshiiyo soomaaliya ku heshiiso ilaa wax hadda lagu joogo oo hadda la isku haysto walaalaheenna 4.5 ay ku diidayeen qaarna weli 4.5 ay leeyihin waa inaan haysanaa waxay tahay waa wax lagu soo heshiiyey ma ahan wax oo xal oo maarata xaq ah haddana in wax lagu heshiiyaa u baahannahay oo arrintaas lagu gaaro haddii ilaah yaraa waana mahadsantihiin guddoomiye